maleeshiyo beeleed hubeysan ayaa weerar ku qaaday deegaanka dhagaxanya cadde ee duleedka ka ah degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Maleeshiyada hubeysan ayaa la sheegay in ay dileen 3 ruux oo kamid ah dadka deegaanka, kuwaasi oo mid kamid ah u geeriyooday dhaawac daran oo ka soo gaaray weerarka. Weerarka ayaa la sheegay in uu salka ku hayo aana qabiil iyo colaad u dhaxaysa laba beelood oo ka soo kala jeeda maamulada Puntland iyo waliba Galmudug. Laamaha amniga dowlad goboleedka Puntland ee gobolka Mudug ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan sababta weerarkan dhalisay, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in weerarkan dadkii soo qaaday ay u baxsadeen dhanka dowlad goboleedka Galmudug. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanka dhagaxanya cadde ee ka tirsan degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay dadka shacabka ah ee halkaasi lagu dilay. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa weerarkan ku tilmaamay fidno cusub oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo amniga deegaanka ka jira. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in sharciga la horkeeni doono kooxihii falkaasi ka dambeeyay lana baarayo kooxdani iyo waliba xiriirka kala dhaxeeya dagaalamayaasha Al-Shabaab. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku yiri waxaan ka tacsiyeenaynaa isla markaana cambaareynaynaa dilka ka dhacay shalay galab deegaanka u dhaxeeya Galdogob iyo Saaxa Wanaag ee gobolka Mudug ee lala beegsaday kooxo xoolo dhaqato ah ayna dhinteen 2 qofood laguna dhaawacay qof kale. waa fidno cusub oo xasiloonida deegaanka iyo wada noolaanshaha dadka deriska ah lagu qalqalgelinayo. waxaan ku baaqaynaa in kooxdii dambigaas geystay sharciga la horkeeno, baaritaan qotar dheerna lagu sameeyo xiriirka kala dhaxeeya kooxda deegaanadaasi mar walba dilalka ka geysta ee Al-Shabaab. ehelada iyo qaraabada dhibanayaasha ah waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo, ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi. aadan cali axmed VOS TV magaalada Muqdisho.